ciidamada booliiska dowladda Hirshabelle ciidanka xoogga dalka guutada saddexaad qaybta 27aad ee ka howlgala deegaanada Hirshabelle ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay tuulooyin dhowr ah oo yimaada magaalada Jowhar sida tuulooyinka Gumarey, Moorojiido, Jameeco, Gololey, Moobleen, Madaxkinsi, Lafagare, Saarsaare, Casirmaal, Geed Cadlo iyo deegaano kale oo ka wada tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe kuwaas oo inta badan si dhuumaaleysi ay kooxda Al-Shabaab u soo gali jireen si ay ugu qaataan dadka shacabka ah lacagaha ay ku sheegaan sakawaad. ujeedka howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana horkacayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Hirshabelle, ciidanka militariga guutada saddexaad qaybta 27aad, saraakiil ka tirsan madaxtooyada Hirshabelle iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxayna ku soo qabteen rag looga shakiyay kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab kuwaas oo markay arkeen ciidanka dowladda isku dayay inay ka xararaan haasahaatee ciidanka uu feejignaan dheeri ah qabay ayaa gacanta ku dhigay kadib baaritaan dheer oo la marsiiyay. Saraakiisha ayaa u suurta gashay inay kulan la qaataan odayaasha deegaanka oo sheegay raggan lagu soo qabtay howlgalka inay yihiin dhalinta deegaanka, waxaana saraakiisha raggan iyo agabka ay wateen ku wareejiyeen odayaasha deegaanka damiin ahaan. waxaan idin si tuhuna maadaama aad cararaysiin waxaan rabnaa inaan idin soo xaqiijino waxaan sheeganay inaad tahay makiina ley waxaa lagu soo qabtay adoo cagafley oo cararaysa markii lagu soo qabanayay sax waa la idin soo qabtay cagafley ma cararto صح ولكن أنا معرر أنا كودا ما عقفلي ما أرده هذا أرده يا لو ساق قبتي والله ساق قبتي مثلا عقد كنت جت معي لو ملي توبق لا يا لو ملي توبق لا لو ملي توبق وأرديسين لا بقول وطاولتين ولا أرديسين أساسا اللي كل ذول اللي ساق قبتي فين وحين نبيين saddexdii wiil oo cararay soo baxsatay waa kuwana la soo qabtay saddexdii wiil waxaan idin siinay adinka waxaan rabnaa damaarada idin ku siinay waa soo cadeynaynaa. howlgalka kadib gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage ayaa ka hadlay ujeedka howlgalka. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu wa salaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. maanta oo taariikhdu tahay 1 bisha 12aad ee December 2021 waxaan howlgal abni xaqiijina ku nimid tuulooyin ay ka mid tahay Madaxkinsi ama Arbacow meesha loo yaqaano, Gololey tuulada la yiraahdo, tuulo kale oo ayadana u dhaxaysa labadaas tuulo oo lagu magacaabo Huryaale. tuulooyinkaas oo dhan baan maanta howlgal ka sameynay iyo Lafagare tuulo la yiraahdo. halkaas oo ay nagu wahliyeen inala socdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay nagu weeliyeen howlgalkaas booliiska Hirshabelle. runtii wax dhibaato ee kala ma ana kulmin magaaladan wadankan waa la socotaan abni darra iska jirto. waxa lagu jiraa xilligii maaragtay doorashooyinkii baa la galayaa oo hadda aanu diyaar garoobaynaa si marka anugu war hayno deegaanada nagu hareeraysan ayaan maanta u nimid halkan inaan ka war hayno waxa ka jiro iyo waxa maaragtay yani ka socda. waa wax dhibaato ah hadda halkan kala kulana ma jiraan waana soo gabagabayna howlgalkii si wanaagsan oo noogu dhamaaday. howlgalkan iyo howlgallo kale oo dhowr ah oo ciidamada dowladda ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada ayaa looga gol leeyahay sugidda amniga magaalada Jowhar xilli diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu jiro. Maxamed Diite, Hirshabelle TV, Jowhar.